nin ayaa taagnaa meeshii lagu daldali lahaa wax yar ka hor inta aan la fulin xukunkiisa, laakiin halkii laga filayay cabsi, wejigiisa waxaa ka muuqatay qosol khiyaano leh. Markii la riixay birta hoos u sii daysay jidhkiisa, xariggii ayaa qoortiisa ku adkaaday. Dadkii oo dhan waxay u maleeyeen in uu dhintay. Laakiin si lama filaan ah, ninkii ayaa dhoola caddeeyey isagoo hawada ku jira. Dadkii ayaa afka kala qaaday isagoo jidhkiisa rogaya, wuxuuna sameeyey boodbood qurux badan oo la mid ah boodada Leo Fish Flip. Xariggii daldalka ayaa u ekaaday sidii lulmo uu ku ciyaarayo hortooda. Oday waayeel ah ayaa miyir beelay isagoo la yaaban waxa uu arkay, laakiin falkaas ma ahayn ciyaar ama nasiib, wuxuu ahaa jahawareer qorshaysan. Isla wakhtigaas kooxdiisii ayaa bilaabay inay tuugada ka bilaabaan tuulada oo dhan. Dahab, lacag iyo xitaa dareenka dumarka deegaanka waxba lama dayn. Ilaaladii ayaa doonay inay bastooladooda soo qaataan, laakiin ka hor inta aysan toogan, mid ka mid ah saaxiibadiis ayaa tuuray mindi si cajiib ah u duushay hawada. Mindidii waxay si nadiif ah u jartay xariggii qoortiisa ku xirnaa. Ninkii ayaa dhulka ku dhacay, si dhaqso ah u rogmaday, wuxuuna ku soo degay agagaarka kooxdiisa. Midkood ayaa isla markiiba jiiday xariggii, waxayna isaga si degdeg ah ugu baxsadeen, iyagoo ka sii horeeyey boodhkii weli kor u kacay.